بسم الله الرحمن الرحيم. هاتنا وحاين وسو وجهان بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. iminkana waxaa soo galaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. marti sharafta qiimaha badan waxaa idin ka codsanayaa inaad nala soo dhaweysaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. مدحونيد madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isla markaana waxa ay ciidamadu u dhaqaaqeen dhinaca kale waxa hadda dhacaya maqalsan soundka waa ciidanka baanbayda ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxa weli ku guda jirnaa tabinta tooska ah ee aad kala socoteen warbaahinta qaranka waxaan ku sugannahay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya halkaas oo ay ka socoto munaasabad lagu weyneynayo sanad guuradii 62 ee ka soo wareegatay aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed daawadayaal waxaa xigi doona gaadaka ciyaar ay soo bandhigi doonaan cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mas'uuliyiin kala duwan ayaa goobta ku sugan بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدن مدحوينه hadii ay ogolaato waxaan furfurayaa barnaamijkayga xafladda waxaana ku soo dhawaataan xafladda sanad guuradii 62 ee ka soo wareegatay aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maanta oo ah 12 abriil waxay ku aasaasan tahay maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa oo ilaaliya qatar waliba ay soo wajahday geyga Soomaaliya qodobada barnaamijkeega ama xafladda ay ku saabsanaan doonto
waxaa ka mid noqonaya aayadaha qur-aanka kariimka ee qowlkii eebe gaarta kaciyaar oo ay soo bandhigi doonaan cutubyada kala duwan ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kaleeto waxaa khudbadiina u jeedin doona maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa kaloo ku sugan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed cafwan daawadayaal waxaa kaloo ku sugan gudoomiyaha baarlamaanka iyo weliba gudoomiyihii gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale waa ciidanka baanbayda ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo iyaguna qaybtooda ka qaadanaya saad maqlaysaan waa astaanta mudane madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda soomaaliya golaha wasiirada xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo dhammaan marti sharafta kale ee qiimaha badan waxaad ku soo dhawaataan xafladda sanad guuradii 62 ee ka soo wareegatay aasaaskii 62 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markana barnaamijkayga maadaama aynu nahay dad muslimiin ah waxaynu ku furfuranaynaa aayadaha qur-aanka kariimka ee qowlkii eebe waxaana dhammaan geesiyaasha u shahiiday qaranka dartiis aayadaha qur-aanka kariimka u aqrin doona laba xidigle maxamed cabdixamiid بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله العظيم markana waxaan gudagalaynaa gaarda kaciyaar oo ay soo bandhigayaan cutubyada kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dabaabaadka gaashaaman ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayagoo halkan loola tuus iyo fantasi ku mari doona ayaanu daawan doonaa hubka noocyadiisa kala duwan iyadana dawladda federaalka Soomaaliya maanta guuradii 62 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkan waxaa diyaar ku ah cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gawaaridooda gaashaaman mudane madaxweyne waxaa kaa codsanaa inay ii ogolaato oo aan soo dhaqaajiyo luuqan fadhiisana waa igu talagasheen marka soo bandhigayaan xoogga dalka Soomaaliyeed maanta waa munaasabada 62 ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa naga daawanaysaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee SNTV iyadana sidoo kale naga dhageysanaysaan radio Muqdisho
ayagaa laga rabaa baarlamaanka maxamed mursal iyo sidoo kaleeto duqa magaalada muqdisho wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga iyo marti sharaf kale oo aad u ballaaran iyaduna ay ka qayb galayaan munaasabadan weyn ee lagu xusayo maalinta ciidamada qalabka sida ee 12 abriil ayaa waxay ku soo beegtay bisha barakeysan ee Ramadaan iyaduna si weyn dadka Soomaaliyeed ugu diyaar garoobeen maalintan dhammaan Soomaaliyeed waxa halkan looga duceeyay ciidamada xoogga Soomaaliyeed ee u shahiiday difaaca dalka iyo mas'uuliyiin kala duwan oo kamid ah madaxda Soomaaliyeed gordhow ayadana sidoo kale waxay madaxdu la hadli doonaan bulshada iyaduna u soo bandhigi doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waxqabadkooda وطايد داوديال وعادة بالنوضين ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo sameynaya gaada ciyaar aad u qurux badan iyadoo halkaan ay ku soo bandhigayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada cirka ee xoogga dalka Soomaaliya oo loo carbiyay inay la dagaalamaan cadawga dhanka cirka ayaa ugu horeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkaan ku soo bandhigaya gaada ciyaarka ciidamada soo bandhigaya gaada ciyaarka waxa ugu horeeya ciidamada cirka iyadoo uu gudbiyo taliyahooda dabagalnooda sidoo kale ciidamada kamid ah ku xiga ciidamada badda oo ah ciidanka dharka cad oo iyaguna soo bandhigaya gaada ciyaar aad u badan waxa daawadeysaan bulshada qaranka Soomaaliyeed daawadayaal saa arkaysaan hadda waxaa soconaya gaada ciyaarka ay soo bandhigeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama ay maanta ku aasaysan tahay sanad guuradii ciidamadu waa ay soconayaan waa ay gaardinayaan waxaana ay soo bandhigayaan dhowlatus waxaa horkacaya saraakiil ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka ugu horeeya waa ciidamada cirka waa ciidamada badda ee xoogga dalka Soomaaliyeed sida gaada ciyaarka ay u soo bandhigayaan ayaan idinku soo tabin doonaa sida tooska halkaad kala socotaan waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed ama warbaahinta qaranka guud ahaan si toos ah uga socotaan waxaan ku suganahay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka oo hadda live ama tooskan idinka daawada waa maalin ku weyn maalmaha ciidanka waa kuwa وكل دورة إلالية دفاع أرنكا إيدا قيدة إيدا كإركا ciidanka cirka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka cirka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidankii badda ayaa daba raacaya waa kuwa difaaca xeebaha xuduudaha badda inooga furan qatar welibana waa ay ka hortagaan كلية ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiishoodii tababarka ku jiray
iyo saraakiil xigeenadii waa kuwan halkan fatase ku soo bandhigaya waa kulliyadda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa kuwii u huray qaranka naftooda waa kuwa dhiigga u daadiya calanka ciidda dalka iyo dadkaba waa kulliyadaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed cutubyadoodii kala duwanaa ee saraakiisha loo soo saaraya iyo saraakiil xigeenada waa diyaar astaantoodu waa diyaar waa difaaca calanka ciidda dalka iyo dadkaba mar welibana way u taagan yihiin difaaca ciidan waa kuwa dhowro ilaaliya xuduud weliba ee ku furan geyiga soomaaliya waa kuwa hoggaamin doona ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed markanna waxaa soo galaya booliisiyo militario waa kuwa ka hortaga dhowra shuruucda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa booliisiyo militario markanna waxaa soo galaya ciidankii dhulka kuwa lugta ku dagaalama buuraha haraha togaha cadowga ka weerara mar welibana uu gala waa kuwa u dhaartay qarankani waa ciidankii dhulka ee xoogga dalka soomaaliyeed uma baahna codkooda iyo lugtooda ayay ku caanamaalayaan iyo dadkaba uma baahna in loo tumo durbaan lugtooda ayaa durbaan u ah waa commandos ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uma baahna durbaan in loo garaaco lugtooda ayaa durbaan u ah waa kuwa dhowra ilaaliya calanka ciidda dalka iyo dadkaba waa kuwii naftooda ka jeclaa qarankani waxaa soo socda kuwii awoowayaashooda iyo dhulkooda hooyo u hibeeyey qalbiyadooda waa commandos waxaa soo socda kuwa shacabkooda dartiis si sharaf iyo ixtiraam leh ugu dadaalayay waxaa soo socda geesiyaasha soomaaliyeed waxaa soo socda kuwa gala godadka harooyinka togaha socodkooda ayaa ka garan kartaa uma baahna durbaan iyo sacab in loo tumo waa commandosta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidda calanka iyo dadka soomaaliyeedba ciidamadan ayaa ka qayb qaadanaya kusan guuladii 62 ee ka soo wareegatay markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa kuwa soo galaya waana sababta ah in ay hurayaan naftooda waa commandos codkooda ayaaba ka garan kartaan waa ciidan muuqaal wanaagsan oo mustaqbal wanaagsan leh waa niman adag oo ku kalsoon nafsadahooda waa kuwa u diida cadowga riyaad iyo hardiga inuu ku haydo waa kuwa dhowra
ilaaliya calanka buluugga ah oo mar waliba babanaya. kuwan hadda marayana waa ciidanka commandoska danab waa kuwii taariikhda hori lahaa laguna qori lahaa, waa kuwii qarniga magacooda lagu xusi lahaa, waa kuwii waawadkii cadowga mar waliba ugu gala godadka ay ku jiraan, waa commandos taa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mar waliba u dida cadowga. haddana daawadayaal waxaa soo bilaabanaya dabaabaadka ama baabuur gaadiidka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. saa arkaysaan daawadayaal iyagana waxaa soo bilaabanaya halkaasi ku dhammaaday gaadiidka ciyaarka ciidanka, balse hadda waxaa soo maraya gaadiidka. waa dababaadkii gaashaamna oo cadowga mar waliba ku jira. saa arkaysaan daawadayaal waxaa soo galay gaadiidkii.
haddana daawadeyaal saa arkaysaan waxaa soconaya weli dabaabaadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku soo bandhigayaan gaadaka ciyaarka iyo sanad guuradii 62 ee ka soo wareegatay markii la aasaasay weli waxaa ka daawanaysaan tabinta tooska ah warbaahinta qaranka waxaa idila socodsiinaya Anosh Laawa
isku soo noqod wanaagsan. markana waxaan meediyaha ka codsanaynaa si brotokool leh ay hore u yimaadaan, brotokoolkana dhowraan. kow laba kow laba. isku soo noqod wanaagsan mar kale. weli waxaynu bartanka kaga jirnaa xafladayada qiimaha badan ee sanadguurada 62 ee ka soo wareegatay aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. markana waxaa khudbad inoo jeedinaya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Saraya Guuto Odayaa Yuusuf Raage. بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية قدوميها قولها شعبك وسير كحجينك وسارة دقاشان دقا ودهان قولها وسير هذا هل كان فرديا رئيس وزاره هوري جمهورية فدرالك الصومالية تلياشا عيدا مضى هل كان فرديا kuwa Soomaaliyeed iyo kuwa amisoomba safiirada beesha caalamka ee halkaan la fadhiya xildhibaanada labada gole Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga taliyaashii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed
oo ayagana runtii maanta halkaana la fadhiya taliyaha kulliyadda turkisom dhammaan saraakiisha abaanduulayaashii hore ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ayaguna halkaana la fadhiya dhammaan sarreeyayaasha saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda ee meediyaha oo runtii ayagana halkaana la fadhiya guud ahaan marti sharafta qiimaha badan ee xafladdan ka soo qayb gashay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan hadal laguma soo koobi karo runtii hilmaa hadal kuma jiro taliya xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo taliya xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed walaalkay jenaraal cabbaas amiin cali oo runtii aad iyo aad iigu qiimo weyn mar kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib mudana madaxweyne mudayaal marwooyin waxaa sharaf weyn inoo ah maantay inaad nagala soo qayb gashaan sanad guuradii 62 ee ka soo wareegatay aas-aaskii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo runtii aan ognahay ummadda soomaaliyeed qiimaha iyo miisaanka ay ugu fadhiso ognahayna labadii sane aan soo dhaafnay in aan la xusin sababo la xiriira cudurka faafaha daran ee coronavirus awgiis maanta ayay inoo suurto gashay waxaa mahad iskale allah subxaanahu wa tacaala oo ay tahay 12 abriil 2022 in ay noo suurto gasho inaan isugu nimaado sanad guurada 62 ee ka soo wareegata aasaaskii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aad iyo aad ayaan runtii idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina qiimaha badan iyo ka soo qaybgalkiina oo runtii aan dhihi karno waxay noo tahay dhiirigelin waxay noo tahay muxuu ahaa ii sheege in aan horu dhaqaajino howlihii adkaaya aan ku jirnay mudana madaxweyne intaa uga gudbo haddii aan ku laabto dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed runtii wuxuu soo mara marxalada kala duwan maalinba meel ayuu joogay maantay runtii meel ayuu sii gaaray waxaana rajaynaa insha allahu tacaala iyadana inaan ka sii wadi doonno sarena usii qaadi doonno waxaan xoogga saarnay si ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay u noqdaan kuwa xirfadlayaala fahmi kara waajibka iyo mas-uuliyadda hor yaalla gudana kara si habsami leh u guda kara dhammaan howlaha ay ugu xil saaran yihiin qarankooda ee tababarka nuucyadiisa kala duwan ee lagu tayaynaayo heerarka kala duwan ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidaasoo kale ayadana waxaan xoogga saarnay qaadashada aqoon-yahano ka soo qalin jabiya jaamacadaha dalka oo isugu jira muxuu ahaa ii sheegay heer jaamacadeed iyo heer dugsi sare oo aan u kala dirnay kuliyadaha kala duwan ee waddamada aan saaxiibadan nahay kuwaas oo runtii kuwo badan oo ka mid ah oo waddankooda dib ugu soo laabtay waxbarashadoodana si guula ku soo dhammaystay ay wax weyn ka beddeleen howlaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwo badan oo kale oo weli ku maqanna aan aaminsannahay inay si guula ku soo dhammaysan doonaan kana sii dhaqaaji doonaan meesha ay maanta joogaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidaasoo kale mudan madaxweyne waxaan ayadana runtii muddooyinka ugu dambeeyey xoogga saarnay xirfadaynta iyo sare u qaadidda aqoonta saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo heerarka kala duwan loo tababaraya waxaan sidaasoo kale ayadana madaxweyne runtii aan xoogga saarnay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaan ognahay marka laga hadlayo ciidamada muhiim waxa ugu weyn waa taakulaynta sidaas awgeed waxaan runtii xoogga saarnay arrimaha taakulaynta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hadday noqon laheed saadka hadday noqon laheed sancada hadday noqon laheed gaadiidka hadday noqon laheed caafimaadka dhammaan meelahaas iyo meelaha kale ayaan runtii xoogga saarnay waxaad la socotaan runtii asigana in muddaaba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku socda reform isugu jira nuucyo kala duwan hadday noqon laheeday dadkiisa iyo hadday noqon laheeday hantidiisa intaba oo ayagana runtii aan dhihi karno waxaa laga gaara guulo aad waaweyn oo runtii aan halkan lagu soo koobi karin waxaad og tihiin dhammaan xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka mid a waxay martay personal reform oo dhammaystiran asigoo u daadegay ilaa heer maamul taasna runtii waxaan aaminsanahay in ay aheedo hawl aad iyo aad weyn ay aheedo waddo dheer oo runtii safarkeeda uu dhib badnay laakiin ku soo dhammaatay si farxad iyo guula welina socota oo qaybaha ka dhiman insha allahu tacaala aan dhammaystiri doono haddii ilaahay yidhahdo waxaad ogtihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maantay si
systemaatiga ayuu ku qaataa dhammaan xuquuqaadkiisa waxaan uga mahad celinayaa dhammaan howlahaas ayaga ah in allaalay inta nagala qayb qaadatay oo xafiisyada kala duwan ah gaar ahaan waxaan uga mahad celinayaa runtii oo ayagana garab weyn ugu siiyey muxuu ahaa ii sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo guud ahaan madaxda kala duwan ee qaranka waxaa halkaan iiga muuqda wasiirka maaliyadda runtii oo la'aantii aanay noo qabsoomi lahayn hawsha ayada ah oo aan leeyahay aad iyo aad aad u mahadsan tahay iyo dhammaan shaqaalihii runtii arrintaas ka shaqaynayay oo aan aaminsannahay inay qayb weyn ka yihiin ee guulaha laga gaaro arrimaha reformka mudane madaxweyne sidaasoo kale intaa kaliya kuma eko waxaan ognahay inaan la dagaalamayno urura argagixiso oo caalami ah oo aan ognahay inay yihiin dhiig miirato ee daadinaya dhiigga ummadda soomaaliyeed maalin walbana ku howlan dhagarta iyo khiyaanada ay ku samaynayaan ummaddeenna iyo qarankeenna sidaas awgeed maadaaman ay been ku sheegayaan arrimaha diinta islaamka mar walbana ay adeegsanayaan waxaan xoogga saarna arrimaha wacyigelinta oo aan ugu talagalnay dhammaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo bulshooyinka intooda kaleba inta aan gaarsii karno ayadana runtii meelo fiican ayaan ka soo gaarnay oo ayagana runtii aan dhihi karo dhammaan idaacadda qaranka iyo idaacadda ciidamada qalabka sida iyo dhammaan meediyaha kale runtii oo arrintaas ayagana siyaabo gaargaara ee noogala shaqay jiro aan leenahay aad iyo aad u mahadsan tihiin welina aan u baahannaha runtii gacantooda in ay gudbiyaan si looga qabto nimankaa dhiig miiratada ah qarankeenna iyo ummaddeenna mudanayaal iyo marwooyin dhammaan waxqabadka kor ku xusan ee la xiriira muxuu ahaa ii sheege xuska iyo xiriirka guulaha uu gaaray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidaasoo kale ayadana waxaa barbar socday oo aad og tihiinba la dagaalanka ururada argagixisada oo runtii in muddo ah aan kula jirnay argagixisada dagaal laguna qaaday howlgallo aad u xoogganaa oo meelo badan looga xureeyey meelo badan oo xarumo badan ay kula hayeenna lagu burburiyey aan rajaynaynana insha allahu tacaala inaan xoojinno siina dardargelinno si aanu dabargoyno oon uga saarno ummaddeenna si hooyooyinka soomaaliyeed carruurta soomaaliyeed aabbayaasha soomaaliyeed iyo guud ahaan ummaddeennuba ay ugu noolaadaan sharaf barwaaqo iyo nabad waxaan rabaa runtii ayagana inaan halkan ka xuso saaxiibada beesha caalamka oo runtii aan dhihi karno xaqiiqatanka ayagana waxay ka geysteen muxuu ahaa ii sheega dibudhiska hay-adaha amniga gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gacan aad iyo aad muhiim u ah oo runtii aan dareemi karno kaalinta ay ku lahaayeen howlihii aan soo marnay laakiin taana aysan ahayn oo aanay ka turjumayn dhammaystirka waxyaabihii u baahnay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan ognahay waddanka turkiga saaxiibadeenna halkan maanta nala fadhiya oo runtii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybo kala duwan oo aad iyo aad muhiim u ah saraakiil leh saraakiil xigayn leh alifley iyo dabley leh siyaabo kala duwan tababaro uu soo siiyey haddana qalabeeyey agabkii ciidanku u baahnaa sidaasoo kale ayagana waxaad la socotaan saaxiibada maraykanka oo ayagana runtii sidaasoo kale ayagana ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka danab ayaguna runtii kaalin aad iyo aad muhiima ka geystay tababarkiisa qalabayntiisa iyo gacankoyntiisaba intaasba nagala qayb qaata runtii iyuuda oo runtii ayagana aan leenahay aad iyo aad u mahadsan tihiin ayagana runtii howlo badan nagala qayb qaatay wakti dhow inkastoo ay muxuu ahay ii sheegay ay bilaabeen howlahaas laakiin haddana howlahoodu meel aad u fiican ay noo marayaan waxay qalabaynteedii kumbileedle ay dhammeeyeen 4 urur oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed 4 kalena hadda ayay bilaabi doonaan mashaariic badan oo kale oo ay ka mid yihiin dhismaha qaybaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna ayagana way wadaan sidaasoo kale ayagana waxaan rabaa ayagana inoo mahad celiyo UK oo sidaasoo kale ayagana runtii ayaguna ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 6aad ka geystay taageero isugu jirta tababar iyo qalab intaaba isugu jirta iyo sidaasoo kale hay-ado kale ayagana oo si toosa iyo si dadbanba noogala qayb qaata dibudhiska ciidanka sidii unsom unsos unmas iyo guud ahaan hay-adaha kale saaxiibadeenna waxaan rabaa ayagana inaan halkaan aan uga mahad celiyo saaxiibadeenna amisom oo runtii aan dhihi karno qofka bini'aadmiga waxa uu bixiyo waxa ugu qaalisan dhiigga waxay noo bixiyeen dhiiggooda waxaan ognahay wiilal iyo gabdho ayaa halkaan uga dhintay oo iyagoo doonaya nabadda iyo horumarka soomaaliya raadinayana in qaran soomaaliyeed mar kale uu cagihiisa ku istaago aad iyo aad ayaguna u mahadsan yihiin runtii weli waxaana hor yaalla saaxiibadeenna inaan iska kaashanno howlo aad iyo aad weyn oo ay ugu horrayso la dagaalanka argagixisada waxaan ognahay
amisom hadda inay u gudubtay isbuuc ka hor in la ansixiyey admis oo ay transaction noqotay una baahannahay runtii saaxiibadeenna qaaligaa si ay u xaqiijiyaan wixii ay halkan u yimideen taariikhdana ay u gasho wixii ay halkan ka qabteen oo aanay u gelin baalmadow wakhtiga u haray in ay runtii xoogga nala saaraan dabargoynta nimanka arxanlaawayaasha ah ee dhiigga ummaddeenna miiranaya waxaan rabaa runtii inaan ayagana halkaan aan uga jeediyo tacsi guud ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saraakiil xigayn alifley iyo dabley intii ku geeriyootay inta ay la dagaalamayeen ururada argagixisada ah ee arxanlaawayaasha ee dhiig miiratada ah inta ay ka dulqaadayeen ummadooda iyo bulshadooda saaxiibadii nooga geeriyooda waxaan leenahay ilaahay ha idiin naxariisto insha allahu tacaala waxaan xaqiijin doonaa hadafkii aad u dhimateen ayaan xaqiijin doonaa kana miro dhali doonaa ilahay hadduu ogolaado waxaan rabaa sidaasoo kale inaan uga faa'iidaysto fursaddan dhammaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inaan halkan uga diro hambalyo ku aadan munaasabadda ciidda ee 12 abriil sanad guuradii 62 ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhammaan sareeyaasha saraakiisha alifleyda iyo dableyda xaasaskooda iyo carruurtooda waxaan leeyahay farxad wanaagsan runtii waxaan rajaynayaa munaasabadeeda kale in aan ku gaari doono guul iyo horumar annagoo maanta meesha aan taagannahay runtii tillaabo aad u wanaagsan ka tillaabsanay oo dhinac walba ah waxaan rabaa waa dareemi kartaan runtii qabanqaabada iyo inta aan ku jirnay munaasabadan diyaargarowgeera gaar ahaan maalmihii lasoo dhaafay maadaama ay munaasabadan meesha ay ka dhacaysa ay tahay caasimadii bulsho badanna ay ku nool yihiin anigoo u marsiinaya gobernatooraha gobolka haddii xoogay cariiri badan iyo wadooyin badan oo xirxiran ay nagala kulmeen bulshadu inay noo dulqaataan maanta ayaa halkaa noogu soo gabagabowday intaad aragteenna dabcan waxay ahaaday amniga iyo tacadirkiisa aad iyo aad ayay ayaguna runtii u mahadsan yihiin sida dulqaadka leh ee ay muxuu ahay ii sheegeen noogu samreen aad iyo aad aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa runtii oo aad iyo aad noogu weyn taageero aan kala gool lahayn oo aan la ilaabi karin oo marnaba aan qalbigeenna ka go'ayn ayagana bixiyey oo ciidanka xoogga dalka soomaaliya la garab istaagay dowladda jaynaha oo dhinac walba isugu jirta runtii oon aaminsannahay inay xaqiiqatanka ay qayb aad iyo aad u weyn ka qaateen dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo runtii aan dhihi karno waxyaabaha hadda halkan maraya aad arkayseen qaybaha ugu muhiimsan qaybo ka mid a in ay bixiyeen aad iyo aad aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markana waxaa khudbadiisa qiimaha badan ee ku saabsan munaasabadda 12 abriil oo ah maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maantana ay u dabaaldegayaan inoo jeedinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane moxamed cabdulaahi moxamed farmaajo
الله الرحمن الرحيم قدوميها قولها شعبك تليها عيدنك حوجة تليها عيدنك بوليسك تليها حيجينك عيدنك حوجة iyo taliya xigeenka booliiska taliyaha ciidanka cirka taliyaha ciidanka dhulka iyo taliyaha ciidanka badda gudoomiyaha gobolka banaadir taliyaasha hogaamada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyaasha saraakiisha saraakiil xigeenada taliyaashii hore ee ciidanka xoogga taliyaha ciidanka niisa ra'iisul wasaarihii hore golaha wasiirada inta nagala joogta xildhibaanada labada aqal ee sharafta leh diblomaasiyiinta wakiilada dowladaha aan saaxiibada nahay shacabweynaha nagala soo qayb galay munaasabadan qiimaha badan bahda saxaafadda kooxda horseed ee Bambeyda waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Allah mahad iska leh oo maanta noo suurtageliyay qabsoomidda munaasabadan aan u dabaaldegayno xuska sanad guuradii 62 ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u mahad celiyo taliye odawaa runtii iyo saraakiisha sare oo ka qayb qaadatay abaabulka xafladdan quruxda badan iyo sida wanaagsan ay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ay dhismaheeda iyo quruxdeeda u soo celiyeen waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo ciidamada qalabka sida guud ahaan iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qoysaskooda waxaan leeyahay hambalyo waxaan ilaahay ka baryaynaa sanadkiisa inuu nagu gaarsiiyo caafimaad iyo cimri iyo horumar taliya odawaa uu ka hadlay taariikhda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhismihiisa iyo marxaladihii soo maray anuguse wax yar ayaan rabaa inaan ka taabto taariikhda aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ahayd 12 April 1960 uu hogaaminayay aasaasena uu ahaa Allah u naxariistee General Daawud Cabdulle Xirsi oo dhidibada u dhigay aasaaska u dhigay ciidanka xoogga Soomaaliyeed oo muddo 30 sano ah runtii gaaray meel aad iyo aad u sarreysa oo laga ixtiraamo caalamka guud ahaan iyo Afrika gaar ahaan wuxuu ku dhisay ciidankaasi oo cutubiyadii ugu horreeyay ay ahaayeen 2 urur macnaheedu waxay ahayd 8 hormood ayuu ku bilaabay oo aanan khibrad dheer u lahayn ciidan difaac oo badankoodii ka yimid booliis tababar dheeraad aanan haysan war college aan ka soo bixin waxaa intaas dheer qalab maysan haysan dhaqaalana iska daa laakiin wax intaas ka wanaagsan oo ka sarreeya oo ka muhiimsan yuu haystay oo ahayd caqiido ama mabda ama core value wax la yiraahdo principle oo la yiraahdo wadaniyad marka xamaasadda wadaniyadu ay sarreyso qofku waa dhammaystiran yahay waxa u harsan inuu dhaqaaqo oo kaliya markaasna dhismihiisa ee ahayd waqtigaasaan sheegay 2 bilood iyo 3 bilood kadib waxaa noo curtay dowladdii ugu horreysay oo dowladnimadii kala soo wareegtay isticmaarkii ingiriiskii iyo talyaaniga oo iyadana aasaas ay u ahayd wadaniyadda
aasaaskaas waddanyadan ah waxay ka dhaxleen 17 sano oo gobonnimadoon ahaa oo ururkii SYL ay ummadda Soomaaliyeed ay bareen wax la yiraahdo waddaniyad ay bareen in qabiil iyo qabyaaladda laga tago energygaas ama xamaasadaas iyo noogu dhismatay dawladdii ciidankii noogu dhismay waxay keentay marka in la samaysto mission wax la yiraahdo visionkii waa waddaniyadii oo ah in la ilaashado qarannimada madax banaanida ummadeed in la ilaashado waxaa lagu ilaashan karaa marka oo mabaadi'daas ka mid ahaa midnimo marka laga tago qabiil ummadda Soomaaliyeed ay isugu timaado inay yeelatay qarankaasna ummadoo dhan ay ka dhaxayso waa laga soo guuray qabiilkii iyo qoqobkii waxaa loo guuray midnimo tan saddexaad waxay ahayd maamul wanaag ama dawlad wanaag oo siinaysa shacabka Soomaaliyeed kalsooni bacdama amaanadoodii iyo hantidoodii loo ilaalinayo oo cadaalad loogu ilaalinayo aan ummadda loogu kala aaxanaynin wax alla wixii yar ee la isu gaarsiinayo in wax lagu qabto sida hadda aad arkaysaan General Odowa iyo ciidamadiisa ay dib u soo nooleeyeen ama u dhiseen xaruntii wasaaradda gaashaandhigga aasaaskaas yahayd wixii lagu dhisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hadday tahay ciidan dhul hadday tahay ciidan bad iyo hadday tahay ciidanka cirka sidaad ogtihiin saddexdaas qaybood waxay ka galeen kaalin aad iyo aad u sarreysa caalamka iyo Afrikaba oo ay ahaayeen ciidan xoog leh oo ka tilmaaman oo la xurmeeyo oo qayb ka noqday xornimadoonkii Afrika ee lagu xoreynayo ee gumaysiga looga xoreynayo taas macnaheedu waxay tahay in haddii mabaadi' aysan jirin waxa ugu horeeya qofka ugu baahan yahay haddii ummad in la hogaamiyo loo baahan yahay inay tahay mabaadi' dawlad markaan ka hadlayna qaranna waxa weeye waa waddaniyadda weeye taas weeye tan shacabka qabkooda iyo dareenkooda kor u qaadi kara siin kara xushmad iyo karaamo siin kara markii maamulkooda ama hogaankooda uu leeyahay hadaf waddaniyad ama patriotism uu leeyahay qaranka in la ilaaliyo siyaasadda haddii lagu ilaalinayo iyo haddii la difaacayo midnimada ummadda in la adkeenayo ama midnimada ciidanka la adkeenayo oon ciidanka loo kala saaraynin heeb iyo maamul wanaag dawlad wanaag oo lala dagaalamayo musuqmaasuqa oo cadaaladda loo hormarinayo taas waxay u dhashay marka in ciidankii tirada yaraa uu markii dambe gaaray intaysan dawladda buburin 120,000 oo marxalado badan iyo dagaalo badan soo maray markii ciidanka daryeelkoodii iyo xuquuqdoodii loo dhammaystiro oo mushaharaadkoodii iyo daryeelkooda caafimaad meel loo saaro markii tababarkay u baahan yihiin kor loo qaado tayadooda markii ay loo hibeeyo la siiyo qalabkoodii ay u baahnaayeen oo nooc walba ah sidaad ogtihiin ciidamada cirka ee Soomaaliyeed waxay ka galeen kaalin aad iyo aad u sarreysa ilaa waxay gaareen inay gaaraan 3,000 staafka u shaqeeya hadday yihiin pilots wadayaal diyaaradaha hadday yihiin makaaniga hadday yihiin kuwa raadaarka ka shaqeeya iyo hadday yihiin kuwa maamulka iyo logisticska waddan Afrikaan oo ciidankiisa 3,000 gaaraya cirka waa farakutiris ciidanka dhulka waxaa u dhammaystirnaa iyaguna qalabkoodii oo hadday noqoto dabaabadihii madaafiicdii goobta iyo qalab kasta oo ay u baahnaayeen si ay u difaacaan xuduudaha dalka uu leeyahay hadday tahay bad hadday tahay cir iyo hadday tahay dhulba dhismahaas ciidanka oo runtii ummadda Soomaaliyeed siiyay magac wanaagsan adduunka ku siiyay iyo sharaf
aasaaskiisa wuxuu ahaa allah u naxariistee janaal daa'uud cabdulla xirsi iyo mabaadi'dii waddaniyadda ahayd 30 sano kadib markii aan mabaadi'dii ka leexannay oo aan u gudubnay wax laga soo tegey oo SYL ay ka adkaatay oo la yidhaahdo qabiil ama wuxuu gumaysigu isticmaali jiray qayb iyo xukun oo cid walba ama qof walbaba uu aaday meeshii heebtiisa ay joogtay oo meel walba Soomaaliya ahna isbaaro la dhigtay oo cid walbaba meesheeda xiratay waxaa meeshaasi runtii ka dhacay qabjab iyo qaranjab meesha ugu hooseysa ah oo haddana aan ugu hooseennay Afrika inteeda kale iyo adduunkaba oo aan noqonnay wax lagu qoslo oo lala yaabo maxaa yeelay mabaadi'dii fiicnayd ee waddaniyadda ahayd iyo xamaasadeedii waan ka tagnay waxaan aadnay wax aanan qaranka compatible u ahayn oo aan qaran dhisayn oo qabiilah oo ah macnihiisu in wax lagu dumiyo oo keliya qabiilku wuxuu fiican yahay oo keliya markaysan dowlad jirin ama markuusan qaran jirin maxaa yeelay awowayaasheen yaa ku noolaa oo ku dhaqmay 1000 sano xeer iyo nidaam ay lahaayeen laakiin xeerkaas iyo nidaamkaas xeer adduunka casriga la jaan qaadi kara ma aha haddaan qaran noqonnay qabiil dowladaha shisheeye kuma aadi karo mana faysgalayn karo laakiin waxaan kula tartami karnaa caalamka intiisa kale annagoo midaysan oo dowlad adag ah oo mabaadi'daas aan sheegay ku dhisan 30 sano oo ugu dambeeyey ma iskaga sheekeen mayno wixiina soo maray waa wax u baahan bilo iyo sanado in laga sheekeeyo wixii dhacay insha Allah markay xaaladdu degtana dee waa laga sheekeyn doonaa oo waxay noo noqon doontaa taariikh aan wax ka baranno foolxumadii iyo dhibkii dhacay uu qabiilka noo geystay haddaba waxaa noo soo haray oo hadda hor yaalla waxa la yidhaahdo political instability waxa la yidhaahdo oo qayb ka ah wixii ka soo haray qabiilka iyo qabyaaladii iyo qaybintii iyo argagixiso oo adduunka maxaan ku idhaahdaa nooga yimid oo aysan ahayn wax Soomaaliya ku abuurmay oo aan isla naqaano oo ay qayb ka tahay kooxda la yidhaahdo al-qaacida oo ujeedkeedu yahay in Soomaaliya aysan degin in dowlad adag aysan u dhismin in shacabkeedu aysan horumar gaarin adduunkana aysan waxba la qabsan macnaheedu waxa weeye labadaas cudur waxay nagu soo galeen political instability ama xasilooni la'aan siyaasadeed iyo qoladan nabadiidka ah waxay nagu soo galeen haddaan midaysan nahay haddaan wadaniyiin nahay hadday daacad naga tahay inaan dalkeena difaacanno oo aan jeclaanno namaysan imaadeen meelo kale aadi lahaayeen waxay noogu yimaadeen waxay arkeen inaan haysanno mabaadii khaldan oo qabiil la yidhaahdo oo ummadda kala qaybiya waxay u arkeen inay ku dhex noolaan karaan marka oo ay ka dhex shaqaysan karaan oo ay horumar dalkan ugu diidi karaan fursaddaasna runtii annagaa siinay maxaa yeelay waxaan diidnay inaan patriotic noqonno inaan wadaniyiin noqonno ayaan diidnay haddaba markii lay doortay waxaan ku imid nidaam la yidhaahdo isbeddel doon ayaan ku imid nidaamkii isbeddel doonka ah ma ahayn inaan shakhsi beddelo ama qof beddelo isbeddel doonku wuxuu ahaa inaan dib aan u milicsanno wixii aabbayaasheen ay ku shaqeeyeen oo u shaqeeyey ay ku keeneen xorriyad ay ku keeneen ciidan xoog leh taas oo ah inaan dib ugu noqdo ama aan kala doorto wixii 30 sano na dhibaateeyey oo qabiil ahaa oo siyaasaddeena qayb ka ah iyo inaan qaato mabaadi'da ah waddaniyadda patriotism isbeddelkaygu ma ahayn shakhsi beddel laakiin wuxuu ahaa nidaam beddel nidaamkaas oo ah inaan bilaawno waddaniyadda oo si dhab ah oo si daacada ay naga tahay oo aan dib ugu noqonno mabaadi'daas ama xamaasaddaas waddaniyadeed ee dadkii naga horreeyey ay noo aasaaseen oo foundation ay nooga dhigeen oo ah inaan sovereignty-geena ilaashanno
inaan sovereigntigeena ilaashanno oo aan ku ilaashanno si siyaasadeed iyo si ciidanba labadaba haddii nalagu soo duulo haddii si siyaasadeed naloo weerarno aan si siyaasadeed aan ugu wajahno waa kow sidaad og tihiin marxaladahan soo marnay 5 sano haddii ugu dambaysay waxaan ka bilaabay waxyaabihii ugu darnaa oo na haystay waxay ahaayeen fargelin shisheeye bacdamaa aan kala qaybsanayn oo dadkeennu ay qabiil u qaybsanaayeen oo qaarkeen ay yidhaahdeen waa go'nay intii kalena ay kala irdhoobeen dee dowladaha danaha kale guracan soomaaliya ma joojinayaan markaas inay ka faa'iidaystaan xaaladdaas oo ah inay ku fargeliyaan xaaladdaas adigu aad liidato inay ku fargeliyaan in aan kulli wada maro aan weydiisto inaan noqonno deris wanaag inaan lahaanno saaxiibba noqonno faragelinta ay naga joojiyaan oo aynan mar dambe u dulqaadan doonin innaba ha yaratee wax yaroo faragelina saad og tihiin waxaan ka bilaabay kenya waxaan ku xijiyey etoobiya jabuuti inta deriska nala ah oo kulligoodba xaqiiqatan deris aan nahay loona baahan yahay inaan wada noolaanno oo deris wanaag ku wada noolaanno iyo iskaashi iyo wax wada qabsi wixii hore u jiray iyo caadadii aan naqaanayna laga tanaasulo oo la is ixtiraamo oo si siman loo wada shaqaysto lisuna caawiyo waxaad og tihiin in soomaalidu markay u socdaan kenya meel wajeer la yihahdo in lagu hayn jiray 6 saacadood safarka muqdisho ilaa kenyana ay u socon jireen 7 saacadood markay ugu yar tahay kabaha laga siibay wajeer haddana kabaha looga siibo dadka meesha la yidhaahdo nairobi arrintaas complain yaan ka jeediyey bacdamaa iyaga muwaadiniintooda ama diyaaradahooduba ay toos u yimaadaan saas darteedna in la joojiyo socdaalkaas khaldan oo la midka ah qofka halka ka tega oo yurub aadoo kale waxaa ku xigay soo celinta hawada soomaaliyeed oo laga kontroolayo oo laga maamulayay magaalada nairobi muddo 26 sano ah oo sanadba sanad ay u dhiibaayeen bacdamaa problemkana haysto ay tahay political instability ayna uga faa'iidaysan jireen waxaan ku khasabnay inay dalka keenaan oo annagaas kale annaga aan maamulanno xaqiiqatanna maanta waxaan haysanaa qalab ka fiican dowladaha deriska ay haystaan waxaa intaas dheer dowladaha deriska ah markay xuduudahooda ay damcaan inay kala dhistaan oo ay silig ama derbi ku wareejiyaan waxaa la saaraa guddi border commission la yidhaahdo dowladda kenya waxay bilowday inay samayso xuduud shub ah ama dhagax ah annaga oonan wada tashan oona ka heshiinin arrintaasna waxa weeye wax sovereigntigeena taabanaya weeye maxaa yeelay ma naqaano xariiqda la dhigaayo soohdinta la dhigaayo ma naqaano oo laga dhisaayo waxaa intaas ku xigtay waad og tihiin oo muddo dheer qaadatay iyadana qayb ka ah sovereigntiga soomaaliyeed oo u baahan in siyaasad lagu xaliyo u baahnayd in siyaasad lagu xaliyo waxay ahayd murankii badda annagu aan gelinay oo aan la galnay kenya oo ay kenya aamintay inaan baddii siinay aan u sii deynay oo aan u sii deynay kenya oo ay meel walba ku qortay memorandum of understanding loo saxiixay taasoo runtii culays badan aniga khaasatan igu ahayd oo breshar aanan sahal ahayn ahaa oo hadday tahay mid siyaasadeed oo dee lagu handadaayo oo lagu sheegaayo inaad tabar yar tahay oo leverage badan lagaa leeyahay oo lagu dhibaatayn karo si aan dib uga noqdo badda mid dhaqaale iyada naftigeeda iyo mid siyaasadeed basaan sheegay oo ah xitaa in meelo la soo marsiiyey in election xitaa lagala shaqaynayo si aan u soo noqdo in return aan ku bedelayo
baddaas inaan dib u soo celiyo handadaad waa idin sheegay oo xitaa la gaarsiiyey in toos faragelin qaawan ee Kenya lagu samayso hadday tahay cirka iyo hadday tahay dhulkaba oo aan meel kasta ka dacweynay ilaa markii dambe ay nagu abaabushay jabhad ilaa 800 gaaraysa xuduudka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya iyadana aan si wanaagsan aan ku soo afjarnay guulaha ka gaarto ciidanka xoogga Soomaaliyeed intaasoo idin waxay ahayd wax siyaasad u baahnayd oo lagu ilaalinayo qarannimada iyo madax bannaanida ummadda Soomaaliyeed waxaa kaloo intaas dheer haddii dowlado aad saaxiibo wada tihiin ay murmaan ama ay dagaalaan bacdama aan jilicsannahay bacdama aan muddo kala qaybsanayn bacdama leverage badan uu jiro oo nalaga soo geli karo oo aan jilicsannahay inaan nala ogolayn inaan qaadano dhexdhexaad taasi waa diidnay waana qayb ka mid ah waddaniyadda iyada naftigeeda maxaa yeelay haddii dan shakhsi ay tahay haddee waxa ugu fiican oo qofka shakhsiga uga faa'iidaysan karo laakiin qofka mas-uulka ah hadduu mabda'aas uu leeyahay patriotismka in uu fiiriyo danta dalkiisa iyo mustaqbalka dalka maxaa yeelay markii laba dal isqabtaan oo ay kugu khasbaan mid inaad raacdo oo aysan khasaba inaad raacdo ood weliba xiriirka u goyso oo aad samayso waxaa kaa dhexlaaya dhibkaas dadka kaa dambeeya ma aha wax shakhsi ku xiran ma aha waa laga yaabaa shakhsiga hadduu u arko inuu ka faa'iidaysan karo uu ka faa'iidaysto laakiin waa dhib dhaxal reeb ah oo dadka kaa dambeeya u yaalla maxaa yeelay waxaad gashay dagaal uusan dadkaaga lahayn yaad gashay waxaa idiin soo haray taasi waxay tan siyaasadda tan difaaca intii oo kale aan sameeyey wax cusub maaha wax cusub oo aan alifnay oo aan invention ku samaynay maaha intii hore oo dadkii hore sameeyeen un baan buugta ka jajafay oo aan dib u soo nooleyn oo ahayd in ciidanka madaxa laga dhiso maskaxda laga dhiso waxaa looga dhisayaa markaas madaxa ama maskaxda looga dhisayaa waddaniyadda in lagu abuuro maxaa yeelay waa in ciidankaani uu yaqaano waxa uu dhimanayo inuu yaqaano wuu yaqaanaa waa dhaqankiisa qabiil inuu dhinto waa yaqaanaa laakiin in la baro askariga waxa uu dhimanayo inay tahay waddaniyad iyo waddankiisa wax ka weyn waxa uu yaqaano inay tahay in la siiyo xuquuqdiisa loo dhammaystiro xuquuqdiisa si xuquuqdiisa loogu dhammaystirana waa in la diiwaan geliyo saad og tihiin sanad iyo bar kadib yaan meeshaan imid oo aan joogay usbuucyo aan joogay si aan u baaro waxyaabaha naga hadlaysan maxaa yeelay askartii aan mushaaharaadka siinayna ma gaarayso tayadii ciidankii ma fiicna isku xirnaanshihii saraakiishii iyo dablaydiina ma fiicna waxaan gartay marka inaan meeshaan usoo dego oo aan baaro cilladda meeshay ka jirto cilladda waxaan ogaaday in uusan jirinba hal gal file oo ciidanka leeyahay in ciidankaas hadduu tago meel laga raadiyo aan la aqoon inta isla joogto keliya istaqaana meeshaas waa meesha uu ka bilowday in aan samayno biometric iyo diiwaangelin meeshaan ka bilaabno meeshaas wey waad ogtihiin markaan bilownayna dhibka iyo wixii naga qabsaday iyo ciidankii runtii mutiniga sameeyey oo gadooday oo qaarkood gar lahaayeen oo biometricgii aysan gaarin iyo fingerprintingkii qaarna ay diidanaayeen systemkan cusub
ciidanka xuquuqdiisa la siiyo oo kan la siinayo la yaqaano diiwaan ku jiro waxa weeye ciidanka midnimadiisii yaa ku xigta marka tababarka la siinayo ciidanku inuu yahay ciidan Soomaaliya oo dhan ka kooban oo aanan ahayn hal degaan maxaa yeelay waxa la difaacayo waa qaran siday ahaan jirtay weligeedba oo wax cusub oo annagu aan samaynayno ma aha markaas yaa waxa ay timid tayadii ciidanka waqti badan yaan u baahannahay oo waqti yaa loo baahan yahay marka ciidan la dhisaayo oo ciidanka idiin sheegayo oo 60kii la bilaabay ilaa markii ugu dambeysay ay dawladda burburaysay oo uu gaaray 120,000 intaas yaa la dhisay waa sax marna wadaniyada xoog badneed patriotismka xoog badnaa marna qabiilka xoog badnaa markii qabiilku xoog batayna dee ciidanka tayadiisii waa xumaatay oo ciidanku wuxuu aaday qabiil marka tababar inaan siino ciidanka leh tayo leh si meeshaas ay u soo baxaan ciidan tayo wanaagsan tan ugu muhiimsan waxay ahayd xakamaynta hubka sidaad og tihiin waa meesha ay ka imaanayso maamulka oo aan horey kugu sheegay ciidanku waa inuu qadiyad aaminsan yahay uu difaacayo oo wadaniyadda iyo xamaasadeeda ay siinayso oo dalka waa inuu ciidanku midaysan yahay ta saddexaadna waa maamulka meeshaas way meesha ay ka imaanayso xakamaynta hubka in maamul wanaagsan uu hayo hubka iyo rasaasta dalku leeyahay si aysan u gelin gacanta cadawga ama si aysan u gelin gacanta shacabka aysan u gelin taasna runtii waxaan u xakameynay si aan caadi ahayn oo alxamdulillaah intii annagu aan nimid wixii aan aruurinay sidooday noogu yaallaan awaamiirtana ciidanka taliyaha ugu horreeyo iyo taliyaashii ka horreeyey iyo dadka haya oo maxaan ku idhaahdaa haya maxaa la yidhahdaa hubka haya iyaguna ay xakameeyeen oo aysan marnaba ku tagrifalin waxa dadka ka dhexeeya ciidanka ka dhexeeya waxaa hadda uu ka hadlay taliyaha inaan u gudubnay amisom aan ka gudubnay oo aan u gudubnay admis aan u gudubnay aan ku jirnay muddo waxa la yidhahda Somali transition plan oo aan qorsheynaynay sida aan ciidankeena aan u dhisi lahayn annagoo dagaal ku jirnay inkastoo aysan sahal ahayn ciidanka dhismihiisana in la wado dagaalna lagu jiro aysan sahal ahayn haddana waxaan ka shaqeynay inaan qorsheenno sidii aan uga bixi lahayn waxa la yidhahda chapter 7 oo annagu aan iskugu filnaan lahayn macnaheeduna tahay walaalaheen African Union oo noo soo gurmaday inaan u mahad celinno waxay noo daadiyeen dhiig badan sacrifice badan iyo noo sameeyeen waa u dhaawacmeen inay difaacaan qarannimadeenna iyo dowladnimadeenna aad iyo aadna waa ugu mahadsan yihiin taariikhdaana qoraysa laakiin weligood ma joogi karaan meesha waa inay lahaato waqtigaas weeye waxa marka aan hadda ka shaqeynay oo aan dib u cusboonaysiinay mandatekoodii oo ah annaga 2024 hadduu ilaah yidhaahdo dowladda Soomaaliyeed ay iyadu hanato amnigeeda ciidankeedana iyadu ay u gacan bannaanto taasna waxayna siinaysaa iyada naftigeeda cunaqabateenka aan ku jirno oo muddo 30 sano ah nalagu hayo cunaqabateen xaqiiqatan marar badan ayaan UN-ka aan aad uga doodnay aan uga hadalnay in laga qaado cunaqabateenta maxaa yeelay haddee cadowga aan la dagaalamayno oo alqaacidada ah cunaqabateen ma saarno dalkeena wuxuu leeyahay 3,300 oo dherarkiisu yahay xeeb ayuu leeyahay meeshii rabaan wax kala soo degi karaa annagase waxaana saaran gacmaha naga xiran oo ma awoodno xitaa haddii aan dhaqaale helno in aan soo iibsanno hubkaan u baahannahay si aan cadowga uga gacan sarreyno waxaana saaran cunaqabateen oo hubabka qaar oo weliba kuwa culus oo loo baahan yahay inaan uga adkaano fududeyn karta ama dadejin karta inaan ka adkaano shabaabka ay uu naga saareen cunaqabateen meeshaas markaan joogno dalkeenu wuxuu noqonayaa dal normal ah marka
dad badan waxaa laga yaabaa hadda inay u arkaan dalkeennu inuu yahay dal normal ah. dal normal ah maaha. dal normal ah waxaad gaaraysaa markii adigu gacan buuxda aad sovereignty-gaaga ku difaacan karto oo ciidankaaga aad leedahay oo aad xuquuqdiisa adigu aad siinayso oo qalabkiisa adigu aad u iibinayso oo shacabkaaguna uu ku taageersan yahay. ugu dambeyn waxaan rabaa tacsiin inaan u diro faamilada qoysaska iyo ciidamada qalabka sida iyo annagoo dhanba dadkii halyeeyada ahaa geesiyiinta ahaa oo nooga geeriyooday oo nooga shahiiday dagaaladii aan kula jirnay xagjirka argagixisada alqaacidada aan kula jirnay u dhintay naftooda u bixiyey. ilaahay waxaan ka baryaynaa naxariistiisii iyo jannadiisii inuu ilaahay siiyo. ma iloobi doonno magacooda wuxuu noogu qormi doonaa qalbiga keliya ma ahayd baal dahaba ayuu dalkan taariikhdiisa uga qormi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo. kuwa u dhaawacmayna waxaan leeyahay dalkiinna siday ahayd yaad ugu dhaawacanteen oo waajibaadkiina ahaa. ilaahay hadduu idinka kiciyana alxamdulilaah. dowlad kasta oo timaadana inay idin siiso daryeelkiina iyo noloshiina iyo caafimaadkiina. walaalayaal waxaan kala dooranaynaa haddaan rabno inaan dhisno ciidan xoog leh oo ilaan ciidanka shakhsi ma laha, ciidanku siyaasad ma ah, ciidanka dalka iskale, qaranka iskale. marka la arko ciidankan sida uu yahay iyo juhdiga la geliyey macnaheedu ma aha qof inuu leeyahay. ciidankan waxaa iskale ummadda Soomaaliyeed, waxaana loo carbiyey oo loo diyaariyey oo loo tayeeyey oo loo tababaray inay difaacaan qarankooda difaacaan. haddii aan doonayno marka taariikhdeennii hore inaan milicsano oo taliyaashii hore qaar ay halkan ka joogaan markhaati u ah waxaan sheegayo, waxaa loo baahan yahay in ciidankeenna mabaadi'diisa, ciidankeenna principalkiisa, ciidankeenna afkaartiisu inay tahay waddaniyad, dowladdeenna afkaarteedu inay tahay waddaniyad. anugu waxaan idin sheegaa waa kala doortay, wakhti horaana kala doortay, qabiil iyo dal iyo qaran waa horaan kala doortay. waxaan doortay qarankaan doortay, waxaan ugu shaqaynayaa si waddaniyad ay ku jirtaan ugu shaqaynaya, patriotism ay ku jirtaan ugu shaqaynaya. qofkii caqliga raba qabiil inuu dowlad kula dhex joogo ama ciidan kula dhex joogo, ogaada meel iga qora waa qof xanuunsan ama waa qof hadda dhashay. maxaa yeelay waa soo arag ciidan iyo dal ku dhisan waddaniyad iyo mabaadii guud waa soo aragnay. mabaadiidii waddaniyadda laga tegayna waa soo aragnay oo aan qabiil ka aadnay. burburkeedii iyo dhibkeedii iyo halaageedii iyo qaxeedii waa soo aragnay oo ay gaarsiisay saraakiil badan oo pilots ahaa inay baadiye iska aadaan, xoolaha iska raacaan meeshii awoogood ay uga soo tageen qarniyo hore ay dib ugu noqdaan, ama ay suuqyada ku iibiyaan looska iyo qaraha. maxaa yeelay sharafku waxay ku lahaayeen shalay waddaniyadii sharaf ku lahaayeen, laakiin markii qabiil ay aaday dee waxaa soo gelaysaa qof kale isbaaradiisa. marka waa inaa aadaadna isbaaradaada meesha reerkaagu joogina aadda wey. reerkaagana wuxuu ku siin karo keliya waa wixii 40 sano 70 sano 80 sano ay ku noolaayeen oo aan horumar lahayn weeye waxa qabiilku leeyahay. marka aan wada qaadanno
waa mahadsantihiin anoo hadalka soo guraanadayay baambeyda iga soo galeen waa mahadsan yihiin hadalkaygu wuxuu ku kooban yahay walaalayaal haddaan doonayno horumar haddaan doonayno inaan la tartanno caalamka haddaan doonayno shacab caafimaad qaba aan qaadanno mabaadi'da wadaniyadda ah oo patriotismka ah aan ka tagno wax alla wixii dib noo dhigaya ugu horreeya qabiilka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo ka hadlayay munaasabadda 12 abriil waxaanu ka codsanaynaa inta madaxweynaha wafdigiisu ka dhaqaaqayo in ay inoo fariistaan si sharaf leh brotokoolkana ay lana looraan munaasabadda 12 abriil ciidanka xoogga dalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu halkan ka jeediyay khudbada uu jeedinayo dadka munaasabadda ka qayb galay isagoona xusay muhiimada ay leedahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa halkan ka jeediyay khudbada uu kula dardaarmay dadka iyadoona munaasabadan ay ahayd midda 62 ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka soo wareegtay markii la aasaasay waxay la taagan wariyayna Cabsaaq Shilaabo bal ka waran munaasabadan qaabkeeda aad u mahadsan tahay Cusmaan sida halkan waxa ku soo gabagabowday munaasabadii 62 guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed munaasabadan waxa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida taliyaha ciidanka xoogga gudoomiyihii hore baarlamaanka golaha shacabka iyo waliba mas'uuliyiin isku jirta labada gole madaxweynaha iyo taliyuhuba waxay ka jeediyeen khudbado saala socoteen waxa kale lagu soo bandhigay gaadda ka ciyaar ay ciidamadu sameynayeen iyo waliba gaadiid kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraynaa filimkii tooska aad kala socoteen warbaahinta qaranka iyo waliba sanad guuradii 12 abriil ee ka soo wareegatay markii 62 sano guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed